kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii xog waran iyo maanta qodobada wararkana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka galmudug oo dib ugu laabtay magaalada Soomaaliya caasimadda maamulkaasi galmudug oo faahfaahin ka bixisay wejiga labaad ee shirka Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday askari hore dil u geystay iyo madaxweynaha maamulka Puntland oo la kulmay iftiinka socday deegaanka Soomaaliya Itoobiya wadaas iyo qodobo kale ku soo dhawaada aan ku bilaabay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay caasimadda maamulka galmudug ee Soomaaliya kadib markii magaalada Garowe uu ka qayb galay aaska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Xasan Abshir Faarax madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Soomaaliya ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Garowe ayaa iyaguna waxa la filayaa inay soo gaaraan magaalada Soomaaliya ee caasimadda maamulka galmudug si ay uga qayb galaan shirka dhawaan dhexmari doona madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dhinaca kale maamulka galmudug ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay wejiga labaad ee shirka Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay wejiga labaad ee shirka dhawaan lagu wado inuu ka furmo magaalada Soomaaliya ee caasimadda galmudug mudane Cali Daahir Ciid madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa waxa uu sheegay in shirkan diiradda lagu saari doono sidii xal buuxa loo gaari lahaa doorashooyinka iyo sidoo kale xaaladda guud ee amniga dalka waxaana uu sidoo kale sheegay in dhammaan ay ka soo qayb gali doonaan madaxda maamulada iyo kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana diiradda lagu saari doono sidii loo wajihi lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka Masar Cali Ciid madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa waxa uu xusay in galmudug ay ku guuleysatay in wejigii koowaad ee shirkan uu ku soo dhamaado si wanaagsan isla markaana wejiga labaad ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii ugu soo dhamaan lahaa asafgarada magaalada Soomaaliya ee caasimadda maamulka galmudug ayaa dhawaan waxa ka furmi doona wejiga labaad ee shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka kaas oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana dhawaan halkaasi gaari doona madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay xukun ku riday askari hore dil u geystay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay maanta xukun ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya kaas oo hore dil u geystay qof shacab ah saddex digle Liibaan Cabdi Faarax ayaa loo haystaa dilka Allah u naxariistay marxuum Maxamed Daahir Siyaad dilkaasi oo ka dhacay degmada Hodan 10kii bishii December ee sanadkii hore 2019 kadib dilka marxuumka saddex digle Liibaan Cabdi Faarax ayaa waxa uu baaqsaday gobolka Galgaduud warqad cabasho ah oo ehelka marxuumka ku dalbadeen in cadaalad la horkeeno eedeysanaha ayaa xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida waxay u direen 15kii December 3 cisho kadib dhimashada marxuumka intaasi kadib xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu ka dalbaday taliska Niisa qaybta galmudug inay sharciga hor keenaan saddex xerig leh xooga dalka Liibaan Cabdi Faarax 5tii bishii Abriil ayay ciidamada amniga Niisa waxa ay ku wareejiyeen saldhigga booliiska garoonka Cadde waxaana isla xilligaasi baaris dheeraad ah ku sameeyay laanta dambibaarista booliiska ee CID 13kii bishii May ayay la wareegeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida eedeysane Liibaan Faarax Cabdi oo ay markaas ka soorka ciidamada qalabka sida weydiisteen in loo gudbiyo xabsiga dhexe xafiiska xeer ilaalinta oo isna isku howlay baaritaano kale oo dheeri ah ayaa ugu dambeyn maxkamadda weydiistay in la muddeeyo eedda loo haysto Liibaan Cabdi Faarax ugu dambeyn maxkamadda ayaa maanta go'aan ka soo saartay waxaana eedeysan Liibaan Cabdi Faarax lagu xukumay dil toogasho Kaashale Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu sheegay xukunsanaha uu haysto fursad kale oo ku dalban karo rafcaan muddo ku siman 30 cisho madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada magaalada Garowe waxa uu ku qaabilay wafdi ka socday dowlad deegaanka Soomaalida oo hogaaminaya wasiirka tacliinta sare iyo sayniska Cabdullaahi Muuse wafdigan oo ay ka mid yihiin la taliyaal madaxweyne gudoomiyaha gobolka Doolo aqoon-yahano iyo siyaasiyiin hore ayaa madaxweynaha u gudbiyay dambaal tacsiya oo uga wadeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida
Mustafa Maxamuud Cumar oo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya uga tacsiinayeen geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Xasan Abshir Faarax iyo madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi. Kulanka intii uu socday waxaa sidoo kale looga hadlay horumarinta iskaashiga dhinaca walba oo dhexmara maamulka Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Halkaad weli nagala socotaan oo warbaahinta xog waran markan haddii aan dib ugu soo laabano magaalada Muqdisho, taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu ku eedeeyay in aanu ka foqin meesha uu ku dhago. Taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalooshe ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka shirka Dhuusamareeb. Masar Sanbalooshe ayaa waxa uu sheegay in shirka Dhuusamareeb uu yahay shir xasaasi ah oo waqtigiisa ku soo aaday isla markaana loo baahan yahay in maamul goboleedyadu ay ku adkeystaan mowqifkooda si dalka ay doorasho uga dhacdo maadaama waqti badan uusan jirin. Taliye Sanbalooshe ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu weli ku adkeysanayo doorasho qof iyo cod isla markaana uu la diyaarin 4 sano oo xukunka hayay, waxaana uu tilmaamay inuu doonayo 2 sano oo muddo kordhis ah. Sida uu yiri Farmaajo, inta aan ka aqaano waa nin aan ka guurin ama ka foqin meesha uu ku dhago. Waxaa dhici karta dib u gurasho inuu sameeyo oo aanu tanaasulin dhab ah la imaan. Nimanka maamul goboleedyada waa inay mowqifkooda ku adkeystaan oo aysan waqti iskaga lumin, ayuu yiri Sanbalooshe. Sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana uu sheegay hadalkii uu soo saaray ra'iisul wasaare iyo warkii uu soo saaray madaxweynaha in wax badan ay ku kala duwan yihiin. Sida uu yiri, waxaan rajeynayaa hadalka ra'iisul wasaaraha inay dhab ka tahay. Muddo ayuu ra'iisul wasaaruhu luuq ku jiray, hadda ayuu luuqii ka soo baxay nin dhiiran oo banaanka tagan oo mowqifkiisa cad yahay ayuu u eegyahay, ayuu mar kale yiri Masar Sanbalooshe. Shaqada garoonka diyaaradaha ee Beledweyne ayaa si ku meel gaar ah loo joojiyay. Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Soomaaliya ayaa si ku meel gaar ah waxa ay u joojisay shaqada garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne oo maalmo ka hor ay ku burburtay diyaarad laga leeyahay dalka Kenya. Wafdi hogaaminaya wasiirka Gaadiidka Duulista Hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo tagay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan AMISOM iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan si baaritaan loogu sameeyo waxa sababay shilka diyaaradeed. Maareeyaha guud ee hay'adda duulista iyo rayidka Axmed Macalin Xasan oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in si ku meel gaar ah loo xiray garoonka diyaaradaha Beledweyne si baaris loogu sameeyo sababtii keentay in diyaaradii saayid u sitay ciidanka AMISOM ay burburto. Talaabadani waxay ku soo aadaysaa xilli shalay maareeyaha guud ee diyaaradii ku burburtay garoonka diyaaradaha Beledweyne oo lagu magacaabo Kabtan Xuseen uu sheegay in burburka uu sabab u ahaa kadib markii uu dameer soo galay halkii ay ku degi lahayd diyaaradda. Intaasna waxaan ku soo afmeerinaa wararkeennii xog waran iyo maanta.